أصحابتها ولي waxaan joognaa magaalada Madiina masjidkan aan joognaana waa masjid Quba oo ah masjidkii ugu horeeyay ee Islaamka masjidkani ayaa waxa dhismihiisa lahaa Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana uu ku yaalay xaafadda Quba oo 6 kiiloomitir u jirtay gudaha magaalada Madiina korintii aan weynaan magaalada Madiina Quba ayaa waxa uu yahay masjid Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo booqan jiray kuna tukan jiray salaada sidoo kale waxa uu inoo sheegay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam in qofka ku tukada 2 ragcadood masjidka Quba uu u dhigmo qof umraystay oo kale kumanaan ka mid ah muslimiinta soo booqday magaalada Madiina ayaa sidoo kale waxay yihiin kuwa yimaada masjidkan Quba kuna tukada masjid Quba ayaa runtii ah masjid aad u qurux badan marka gudaha u gasho iyo marka dibadda ka joogto dhanka kale barxadda masaajidka ayaa mid si weyn loo qurxiyay isla markaasna loo sameeyay goobo ay ku nastaan dadweynuhu halkan joognaana magaalada Madiina masjidka Quba ee ku yaala magaalada Madiina ayaa waxa ku tukan kara salaad kasta dad lagu qiyaasay 30 qof habta waxyaabaha kala cajiibka ee masjid Quba oo waxa weeye aan ku arkay intaan joogay waxa kamid ah in masjidka agtiisa ay sidoo kale jiraan suuq aad u qurux badan oo aad ka helayso waxyaabo fara badan sida alaabta cadarada cuntada dharka waxaana uu u dhow yahay suuqani afaafka hore ee masjidka Quba